magacaygu waa Cabdifataax Macalin Nuur waxaan ka socdaa TV-ga Somali Cable waxaad moodaa in qodobada inta badan ay warbaahintu ay taabanayaan saaxiibadeena qaarkood ay ka hadleen waxay ka tageen waxaan rabaa inaan wax ku daro qodobo kalena aan wax ka sheego qodobka sida aad ka horta noo taabanaya aan rabo inaan ka hadlo wuxuu yahay qodobkan lagu laabtay ee 15aad sheegaya dhexdhexaadinta iyo xalinta gafafka laga tabanayo warbaahinta dawladda iyo tan gaarka ah marka laga reebo wixii faldambiyada qodobkaas waxaan is leeyahay waa qodobka 15aad waxaan is leeyahay warbaahinta dhibaato badan ay ku tahay arrintaasi waxaan soo jeedin lahaa maadaama asxaabtii hore ay ka hadleen mar rabo inaan kusii dheeraado in warbaahinta aan loo adeegsin horta ereyga la yiraahdo faldambiyeed waxaan codsan lahaa in gabi ahaanba meesha laga saaro sababtoo ah saxaafadda dambi ma aha qodobka kale aan rabo inaan ka hadlo wuxuu yahay qodobka 16aad farqadiisa 16.1 waxaa ku xusan warbaahin kasta sida idaacad telefishin madbacad shineemooyin dugsiyada tababarada shirkadaha xayeysiinta website-yada wixii lamid ah ha ahaadeen qaar hadda shaqeeya ama kuwa cusub waxay iska diiwaan gelinayaan wasaaradda warfaafinta heer federaal heer dowlad iyo golaha warbaahinta qodobkaasi xoogaa caqabado noqon kara sababtoo ah haddii wasaaradda warfaafinta iyada lagu xiro waxay bari waxaa dhici karta in warbaahintan ay wax dhiba ay dowladdu ay sheegto kadibna ay go'aan ka gaari karto in warbaahintaasi ruqsadda lagala laabto ama la xiro sidaas darteed waxaan soo jeedin lahaa in go'aanka diiwaangelinta ama ruqsad ka laabashada horta loo gacan geliyo golaha saxaafadda in iyagu go'aan ay ka gaaraan in warbaahintaasi ruqsadda lagala laabto cusboonaysiinta sidoo kale iyo kuwii hore isku diiwaangelin in loo wareejiyo golaha in loo wada wareejiyo oo laga saaro gacanta wasaaradda warfaafinta laga bixiyo taasaan soo jeedin lahaa qodobka aan rabo inaan ka hadlo wuxuu yahay qodobka 22aad waayidda ruqsadda diiwaangelinta qodobadii hore ayuu daba socdaa qodobkaas waxaan soo jeedinayaa qodobkaasi haddii aan xoogaa dul maro hay-adaha warbaahineed ee hore loo siiyey ruqsadda lana diiwaangeliyey waxay waayi kartaa xaqa ruqsadda haddii ay ku howlgeli weydo muddo 6 bilood ah ama hakad ka galo adeegyada muddada 3 bilood waxaan soo jeedin lahaa in laga daayo muddada cayiman lagu xirayo warbaahinta sababtoo ah waxaa soo wajihi karaa in qalabkii uu ka gubto amaba meeshii ay ka guuraan ama wax kale ay soo wajahaan sidaas darteed in ruqsaddii lagala laabto ama warbaahinta la xiro in waxaan is leeyahay muddada in la dheereeyo meesha ay 6 bilood ay ka tahay in hal sano laga dhigan soo jeedin lahaa intaasaan kusoo kooba maasantiin si sahlan ugala soco 89.7 FM Mustaqbal Radio warbaahin wax dhista